Inter Milan oo darbaxa xooggan la damacsan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. Neymar qalad ayuu sameeyay kadib markii uu ka baxay garoonka Camp Nou. Haatan wuxuu dareemayaa qoomamo weyn. Messi oo yiri Zlatan Ibrahimovic oo diiday in uu meesha ka saaro dib ugu laabashada Europa. Nemanja Matic oo aan ku faraxsanayn Old Trafford albaabadana u furay in uu u dhaqaaqo dalka Talyaaniga. Juventus oo bartilmaameedsanaysa mid ka mid ah xidigaha ka tirsan kooxda Chelsea waa tee kooxda Arsenal wadahallada ay kula jirto si ay u siiyaan Mesut Ozil. Man City oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Khalid Koulibaly. Messi record cajiib ah uu ku garaacay Ronaldo. bal eeg isbarbardhigga xiisaha badan ee lagu sameeyay labadan xidig. Zlatan Ibrahimovic oo diiday in uu aado horyaalka Europa. waan ka fiicnaan lahaa ciyaartoyda halkaasi joogta. qandaraaskayguna wuxuu ku ogyahay bisha December. mana aqaano waxa dhici doona intaasi kadib. Zlatan ayaa khibrad hore u leh horyaalka Serie A ee Talyaani, kaasoo ku raaxaysanaya guulo waaweyn oo la qaatay Inter Milan, halka sidoo kale uu soo matalay AC Milan isagoo xirfadiisa ciyaareed heerka kooxaha ku soo jiray muddo 20 sano ah. Ibrahimovic wuxuu dhaliyay 443 gool, 786 kulan u saftay, waxaana intaas uu dheeryahay in uu 62 gool u dhaliyay xulkiisa Sweden. waa tee kooxda ay Arsenal wadahadalada la furtay si ay u siisay Mesut Ozil. Ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa lala xiriirinayaa in uu u dhaqaaqi doono kooxda Arsenal suuqa xagaagan, laakiin mushaarkiisa oo mid sare ayaa loo maleynayaa in uu caqabad ku ahaa wadahadalada. yeelkeeda wargeyska Turkiga ayaa ka soo baxay Takvim ayaa warinaya agaasimaha Fenerbahce oo Demin Kamal uu haatan wadahadalo kula jiro Gunners, kaasoo ku saabsan heshiis amaah ah oo uu labada koox kula qaybsanaan mushaarka Ozil. xidigii hore ee xulka qaranka Germany ayaa horey u sheegay in uu jeclaan lahaa in uu u ciyaaro Fenerbahce oo mar uun xirfadiisa ciyaareed maadaama ay ahaayeen kooxdii ugu taageerada badneed oo ku soo barbaaray isagoo wiil yar ah. Kooxda kubadda cagta ee Man City ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Khalid Koulibaly, sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dalka Spain. Macalinka Man City ee Pep Guardiola ayaa shaaca ka qaaday in uu doonayo in uu kooxda ay la soo saxiixato daafaca dhexe oo cusub suuqa kala iibsiga xidigaha bisha Janaayo. Koulibaly ayuu aqoonsaday in uu yahay mid uu suuragal tahay in uu soo iibsado 28 jirkan, kaasoo sidoo kale lala xiriirinayo kooxaha Man United iyo Real Madrid intii lagu guda jiray suuqii kala iibsiga xidiga ee xagaagii. ayaa in ka badan 200 oo kulan u saftay kooxdiisa Napoli tan iyo markii uu ugu soo biiray Genk sanadkii 2014. si kastaba ha noqotee, Napoli ayaa la sheegayaa in ay diyaar u ahayn in ay iska iibiso xidiga heerka caalami ee dalka Senegal haddii kale la bixiyo lacagaha qandaraaskiisa lagu burburin karo ee 110 milyan oo geni ah, taasoo u qiimeyn karta in ay bartamaha xilli ciyaareedkan la soo wareegaan. Kooxda kubadda cagta ee Juventus oo bartilmaameedsanaysa xidig ka tirsan kooxda Chelsea. warsidaha caanka ee Jole Kamata ayaa warinaya in Juventus ay indhaha ku hayso in ay la soo saxiixato daafaca garabka bidix ee Chelsea Emerson Palmieri bisha Janaayo ee sanadkan cusub. xidiga xulka qaranka Talyaaniga ayaa heshiiskiisa ku egyahay sanadka 2022 kula Chelsea
waxaana uu haatan ka fiireysanayaa ujeedinta timid Blues ee qandaraaskiisa la kordhin doono oo la gaarsiin doono ilaa iyo sanadka 2024 laakiin tababare Maurizio Sarri kaasoo uu ku soo dhawaaqay Emerson kooxda Chelsea ayaa rajeynaya Neymar Jr qalad ayay ku ahayd in uu ka tago garoonka Camp Nou. Lionel Messi oo sidaas yiri: waxaan u maleynayaa in bixitaanka Neymar ay ahayd mid qalad ah. Haddii aad u taqaano Neymar sida aniga oo kale, isla markaana aad ka warqabto in uu la dhibaatoonayo noloshiisa Paris, waadna ogaan doontaa in uu qalad ku sameeyay bixitaankiisa Barca. Si kastaba ha noqotee, Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa in xiriirka saaxiibtinimo ee Neymar Jr iyo aad u kala dhexeeyo, inkastaba oo ay soo baxayaan warar sheegaya in xiddiga reer Brazil uu ka tagay Barcelona si uu uga baxo hooska xiddiga reer Argentine sababtoo ah ma uusan dareemin ixtiraamka saxda ah ee taageerayaasha iyo kooxda Barca. Messi oo rikoodh cajiib ah ku garaacay Ronaldo. Bal eeg isbarbardhigga xiisaha badan ee lagu sameeyay. Isbarbardhiggan cajiibka ah ee u dhexeeya xiddigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa waxaa ka mid ah ku guuleysiga horyaalada marka loo eego kooxaha ay u ciyaaraan. Inkastoo si aad ah ay isugu dhow yihiin tirsiga goolasha, Argentina waxyaabo qaar ay ku sareeyaan inkastoo uu ciyaaray kulamo yar inta uu ciyaaray dhigiisa reer Portugal oo ay si weyn ugu dagaalamaan kubadda cagta. Messi ayaa ciyaaray 455 kulan horyaalka ah, dhammaantooda waa horyaalka La Liga ee dalka Spain, wuxuuna dhaliyay 420 gool, taasoo celcelis ahaan ka dhigan in uu dhaliyay 0.92 gool kulankiiba. Wuxuuna sidoo kale caawiyay 164 gool, wuxuuna sidaas kaga qayb qaatay 584 gool oo ay ka dhalisay kooxda Barcelona. Dhinaca kale, Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu ciyaaray kulamo gaaraya 550 kulan ee isugu jira horyaalada Portugal, Ingiriiska, Spain iyo Turkiga, wuxuuna dhaliyay 422 gool, wuxuuna 2 gool oo kaliya ka badan yahay xiddiga ay xifaaltamaan ee Messi. Laakiin heerka celcelis ahaaneed ee gool dhalintiisa ayaa aad u yar, wuxuuna dhaliyay 0.76 gool halkii kulanba. Marka loo eego heerka gool caawintiisana, wuxuu sameeyay 130 caawin, wuxuuna guud ahaan ka qayb qaatay 552 gool. Laakiin Messi ayaa sidoo kale wuxuu kaga sareeyaa Ronaldo tirshada inta horyaal uu ku guuleystay xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, wuxuuna ku guuleystay 10 koob ee horyaalka La Liga dalka Spain, halka 7 horyaal uu ku guuleystay xiddiga reer Portugal ee kala ah 4 Premier League ah, 2 La Liga ah, 2 jeer oo La Liga ah iyo 1 jeer oo horyaalka Talyaaniga. barbaarti la soo xulay tartan loogu baaqay bulshada hayrageeduma bilaabo sarakaca